dagaalka haakariska ee Falastiiniyiinta ama Xamaas iyo Israa'iil u dhaxeeya oo aad u sii qararaaday dadku inta badan maalmahan waxay la socdaan dagaalka foolka ah ee hubka la isku adeegsanayo ee u dhaxeeyay tan iyo Sabtidii Xamaas iyo Israa'iil laakiin daaha gadaashiisa waxa ka socda dagaal lafaha la isku jabinayo oo haakariska labada dhinac dhex maraya isla maalinkii Sabtida ayaa kooxaha haakarisa oo Falastiiniyiin waxay hawada ka saareen website-kii rasmiga ahaa ee warbaahinta Jerusalem oo aad u taageeri jiray Israa'iil dhowr bilood ka hor bay ahayd markii kooxaha haakarisa ay jabsadeen nidaamkii Israa'iil uga digi jiray gantaalada uga imaanaya Gaza sidoo kale kooxahaas haakariska ah waxay jabsadeen shirkadii korontada Israa'iil iyo bangiyo iyo isbitaallo waaweyn xogtood iyaga oo sheegay arrintaas inay uga argudayaan dhibaatada ku socota Falastiin qadiyadeedan ay ku taageerayaan arrintaas kooxdan haakariska ah ayaa sidoo kale waxay sheegeen in bangiyada Israa'iil hay'adaha dawladda iyo shirkadaha waaweyn Israa'iil xogaha xasaasiga ah ee ay ka jabsadeen ay banaanka soo dhigi doonaan xilliga ugu munaasibsan arrinta ugu badan ee haakariska ay sameeyaan waa in xogaha xasaasiga ah ay si free ah ugu faafiyaan dark webka Israa'iil ayaa mar dhexdaas ah waxay si caadi ah u weerartay oo ciidamo u dirtay dhismo ku yaalay Gaza oo ay sheegtay inay deganayeen kooxaha haakarisa oo Xamaas ka tirsan isla dhismahaasna laga soo abaabuli jiray weerarada cyber security-ga ah ee Israa'iil lagu soo qaado arrinta xaqiiqada ah ayaa ah marna la isma barbar dhigi karo awoodda cyber security-ga Israa'iil iyo tan Xamaas Israa'iil waxay ku jirtaa wadamada adduunyada ugu horeeya dhanka cyber security-ga Israa'iil mandiqada khatarta ah ee ay ku taalo iyo cadowgeeda faraha badan ee ku hareeraysan ayaa mar hore waxay ku khasabtay arrintaas in ay si weyn u maalgashato cyber security-ga oo cilmi iyo aqoon iyo cilmi baarisba ay geliso cyber security-guna waa dagaalka mustaqbalka lafaha la isku jabin doono ciddii aanan aqoon aan u diyaarsanayna waa cid xogteeda oo dhan gacanta lagu dhigi doono dhibaato weyna loo geysan doono Israa'iil waxay isugu yeertay oo ay martigelisay xarumo waaweyn ay siisay haddana degan shirkadaha tiknoolajiyadda ee adduunyada ugu waaweyn waxaana hadda Israa'iil xarumo ku leh shirkadda Apple shirkadda Amazon shirkadda Facebook Google iyo Microsoft sidoo kale Israa'iil waxay ku dadaashaa oo ay si weyn ugu dhiirigelisaa dhalinyarada soo kacaysa in ay si weyn u bartaan tiknoolajiyadda iyo cyber security-ga iyo hacking-ka arrinta cajiib kale ayaa waxay tahay in majaalka cyber security-ga maalgashiga adduunyada uu ku sameeyo oo dhan in 41% maalgashigaas Israa'iil u aado yacni $3.2 billion maalgashi ah oo dhanka cyber security-ga ah ayay Israa'iil gacanta ku haysaa Israa'iil muddo 10 sano ka hor ah markii ay dhoofinayso products-ka iyo barnaamijyada cyber security-ga lacag waxa ka soo gali jirtay 200 milyan ah hadda laakiin waxay ka samaysaa cyber security-ga majaalkiisa lacag gaaraysa $10 bilyan yacni $10 bilyan ayay majaalka cyber security-ga Israa'iil ka samaysaa oo adduunyada u sii dhoofisa ugu dambeyn Xamaas dhanka ay dagaalkan cyber security-ga guusha ay ka keeni karto waa in Israa'iil ay isticmaasho tiknoolajiyad aad u heer sareyso oo nolosheeda dhanba ay tiknoolajiyad ku xiran tahay marka waxay awood u leedahay Xamaas in majaalaad kala duwan sida hada shirkadda korontada ay mar jabsadeen oo kale iyo meelo kaleba ay ka dhibaateeyaan laakiin dhibaatada Israa'iil ka haysata dhanka cyber security-ga markay weerar ku qaadayso Xamaas iyo Gaza waa in Xamaas iyo Gaza tiknoolajiyad aad u heer sareysa aysan isticmaalin sida daraadeedna ay koobnaanayso khasaaraha ay u geysan karto dhanka cyber security-ga markaas waxay ku khasbanaanaysaa in mar walba dagaalkan foolka iyo duqeymaha ah ay Gaza ku qaado